haddii hadda aanu cafis liidhaho oo warqad aan ku dhaho hal cafi mali cafina anigu hebel ahna wax liigu soo qabtay aday ku weydiinaa Facebook gale telegramka aan xiriirkiisa la isiyay kadib adiga markaas lacag uu soo diray booraha lagu ordo qoriga la qaadayo lagu ordo caadi ciidan qaabku suubiye ma aragtay asubineen qof ciidan aan qaabku adiga u tababarto u tabaran dadka waxay ahaayeen adiga Soomaali iyo Xabashi ee ahaay harwa brief summary for your life for the first time that you have joined Tyson's up to today in Nagasiso and just speak English. I think it will be very hard. Dhimtay una fogayaan waa soo baxnay markii aan soo baxnay baa wuxuu igu dhahay adiga inta ka aan kala baxno oo hana ordin oo igu dhahay nin oo askari ah ay iga soo horbax marka askari wuxuu dhahay shatiga kor u qaado shatiga marka kor u qaaday askari markuu uu arkay baasheeda waa igu tuuray anna marka baasheedan soo baxsaday amaanka adiga waa xabadeeda ma ku dhacin miya way ka tibtay miya ma garnaadi naas markaan aan tagay amar la soo xiriiray waa u sheegay waxaan dhahay barnaamijkaas waxa isku biiray markaas waxay dhahday ma dhici karto waxaasa markaas waxay dhahday soo laabay dhahday waxaan ku dhahay may soo laabay dhahday kadib waxaan dhahay way adagtay ugu dhahday kadib waxay dhahday soo xiriirin aniga ila soo hadleen hadda kaama qabanaa telefoon أنت إيماني تقريبا 2 سنة عمل 1 سنة برعمل مثلا كم صح سنة وايو هدي أو قف يعني حبد مركي اللي يقول فناي حسين كوجوي حيقول ما هو يعني سيدا درتيد محكمة waxaa u cadaatay in dambiile Daacish Maxamed Ali Maxamed Faarax uu yahay dambiile galay dambiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum Maxamuud Cabdi Dhuxulow Dawiil cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq